kelmadan u soo horeysa waxa ay la xidhiidhaa mawaanicu nikaax. qodobadii aynu ka soo hadlaynay waxa ka mid ahaa qodob odhanayay guurka waxyaabaha hor joogsada ama dumarka aanu ogolayn islaamku in la guursado ee guurkoodu mamnuuca yahay, midba sabab loo mamnuucayba. sharafta iyo gobonimaduna sidaasay ku jirtaa. dadka ilaahay uu diiday guurkooda mid walba xikmadda loo diiday ku jirtaa. marka fiqiga aad akhriyayso kutubul fiqi mawaanicu nikaaxna waa la yidhaahdaa. almuxaramaatu min annisaa, dumarka guurkoodu xaraam yahayna waa lagu tilmaamaa labada musdalaxba. waa laba eray bixinoodoo fiqiga aad ka akhriyi karaysa labadaba. waaya dumarkaa iyagaa inta aynu iminka ka soo ururin karayno fiqiga waa ilaa sodomeeyo. 30 dumara meelaha ayaa guurkooda shareecadu ay xaraantinimaysay. 7 waxa ay ku xaraam noqonaysaa xagga nasabka, 7 waxay ku xaraam noqonaysaa xagga shaqsiinta iyo nuugmada. 7 waxa xaraam guurkooda uu ku noqonayaa xagga xidhiidhnimada. 7 lagu dhuftay 22 sida xisaabta macruufka ku ah. 9 siyaabo kala duwan ayaa guurkoodu xaraam ku noqonaya. haddii aad akhrido suuratu nisaa, xurimat calaykum ummahaatukum ayaad ka akhri karaysaa. midunbaa ka horeysa, inta ku xigtana waad akhri karaysa, laakiin halkaa kuma wada dhammaa. waxay tahay nusuusta in la isla akhriyo la soo ururiyo. 7 nasabka ku xaraama waxa weeye qofka asalkiisi iyo faraciisi iyo intii ku xeernay, asalkiisi iyo faraciisi iyo xawaashidiisi, dar isaga ka sarreeyo asal ah iyo qaar ka farac u ah isaga ka sii farcamaya iyo qaar hareeraha ka xiga. waxaynu uga jeednaa kitaabku waa laga yaabaa si kala firirsan inuu isagu u sheegay, laakiin si aynu isu dul taagno ayaynu uga jeednaayo qofka xifdinteedu ay ugu koobnaan karto. 7 xagga nasabka waxa weeye qofka hooyadii. hooye marka la idhaahdana ayeeyooyinkiina way soo gelayaan. ayeeyoo dhami waa hooyo. hooyo waxaa la idhaahdaa cidda adiga ku dhashay ama dhashay dadkii adiga ku dhalay. waa hooyow, waa inantaadii. macnaha kuwa ay sii dhashay ee awowga aada u tahayna iyaguna waa inantaadii. inankaaga kuwuu sii dhalayna waa inantaadii. macnaha qofka adiga kaasii farcan kuu sii dhalay waa inantaadii. marka qaacido caama noocaasa bay leedahay. ka 3aad waa walaasha. walaashaa 3 dhinacba way noqon kartaa. tii ay isku aabbiyo hooyo ahaydeen iyo tii ay isku aabba ahaydeen iyo tii ay isku hooyo ahaydeen. mid waliba waa walaaluun. waaya waxaa ku xigaya edadaa iyo habaryartaa, iyaguna waa 2. 5 weeye halkaas. waxaa ku xigaya hablihii aad abtiga u ahayd iyo hablihii aad adeerka u ahayd. macnaheedu waxa weye hablahaad abtiga u tahay waa kuwa ay dhaleen hablaha walaalaha tihiin. hablahaad adeerka u tahayna waa kuwa ay dhaleen inamada walaalaha tihiin. soo saamaan idhaah magacaas ooma naqaano. hablaha raggaa walaalaha tihiin ay dhaleenna waxaa la yidhaahdaa adeerbaad u tahay. hablaha ay sii dhaleen hablaha walaala ahaydeenna waxa loo yaqaanaa abti. abti baad u tahay. 7 aynu sheegnay: inantaadii, hooyada, walaasha, edda iyo habaryaro, hablihii walaalaha lab iyo hablihii ay sii dhaleen dumarka walaalahati. waa 7. 7daasi xagga nasabka ayaa guurkoodu xaraam ku yahay. waa dadaa tol tihiin oo isku nasaba tihiin, laakiin markaad sidaa usii egto qaybina
asalkaagii weeye oo xagga asalkay ka soo jeedaan qaybina aday kaa farcamayaan qaybina hareerahay xigaanoo si unbay xawaashi u yihiin kugu xeeran waaye toddobadaasoo xagga jaqsiinta ahna guurkooda waa xaraam nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yuxarimu min alridaac maa yuxarimu min annasab xagga nuugmada waxa xaaraantinimeynaya wixii xagga nasabkaba ku xaraama ayuunba xagga nuugmadana ku xaraama aayadduna 3 ka mid a haddaad sii akhrido ayay sheegaysaa toddobada ma wada sheegaysee aayaddan suuratu nisaa halkaa jusku ka bilaabmayo agteeda 3 ka mid a bay sheegaysaa dumarkaa waaye dabcan marka la idhaahdo toddobadan unbay la mid yihiin dee qofba qof unbaad barbar dhigaysa inantaadii waxaa noqonaysa tii xaaskaaga jaqday yaa de waa inantaadii hooyadaa waxaa noqonaysa maxay tii naaska ku jaqsiisay walaashaa waxaa noqonaysa tii naaska wada jaqdeen cidadaa waxaa noqonaysa tii aabbaha ay naaska wada jaqeen habaryartaa waxaa noqonaysa tii hooyo naaska ay wada jaqeen dee saasunbaad u wadaysa gabadhaa walaalaha tihiin ee naaska wada jaqdeen hablahay sii dhashayna dee abtibaad u tahay inanka aa naaska wada jaqdeen habluhu sii dhalayna dee adeerbaad u tahay sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo bandhigay jacfar ibnu abi aalib xamsan u malaynaya inuu ahaa adigu adeerkiinanuu dhalay ayaa loo soo bandhigay inuu guursado markaasuu lahaa naas baabaan wada jaqnayba marka wax kale la eeginba dee naas baan wada jaqnay waaya marka halkaa waxaynu sheegnay maxay 2 toddobaad oon mid walba tirinay toddobada saddexaad waxa ay ku xaraam yihiin xagga xiditinimada oo horeynu usoo sheegnay xaqa ka ratibmaya ee ka imanaya dhinaca guurka inuu la mid yahay uun xaqii xagga nasabka oo kale oo sida nasabka xuquuq la isugu yeesho ayaa musaaharada iyo xiditinimadana xaq islaamku uu tartiibiyey markaasay tahay inaad garato meeshii gacaltooya inay jirto la mida tii nasabka maadaama nafaqadii ay ku waajibtay oo dhaxalkii uu ku waajibay oo xidhiirkii kale uu ku waajibay oo sidan guurkoodu xaraam u yahay in loo dhagooleeyo ama la iska indhatirana ma aha arrintaa waa arrin qalada dhaqanka soomaalida ee odhanaya ha la kala saaro tolka iyo xiditinimada oo tolkana ha loo dhinto xididkana haba la dilo ilaan saasay idhahdaane qabaa'ilkeenna waxaad arkaysaa walaalkiina wuu hiilinayaa ama inanku adeerka u ahaa kii abtiga u ahaana wuu dilayaa waaba labadaasba kii abtiga u ahaa ee walaashii dhashay wuu dilay maxaan ku idhaahdaa kii adeerka u ahaana wuu hilinaya ayaan daran weyn wey marka toddobadan xagga xididka ee guurkoodu xaraamta yahay haddaynu tirino waxa weeye ooridii aabbaha maxaa loo yaqaanaa aayadee tii hooyadaa dee waynu soo dhaafnay ee waxa weeye ooridii aabbaha aayaa la ydha aayo aayadii waa aayo aabbo wax kale miyaa lagu sheegaa de aayo aabbun bay malaa soomaalidu wada taqaanaa gebigada dad baa edda u yaqaana aayada aabbo dadka qaar baa edda u yaqaana miya ha eddadiina maxay ku sheegaan markaa eddadiina dee markaa ankal ha u bixiye waaye waa aayadii aayadduba way sheegaysa waxa weeye gabadha inankaaga tusaalaha adigaan kaa soo qaadayaa macnaha waa zawjatu libn inankaaga ooridiisi xalaa-ilu abnaa'ikum bay suura aayaddu ka cabiraysa xaliilatulibni baa la ydhaha sodohdaa waa cajo badantay sodoh iyo xaaskaagu inantii ay sii wadatay qur-aanku rabiibada u bixiyay wa rabaa'ibukum alrabiiba xaaskaagu inanta ay hore usii wadatee nin hore ka dhalay intaanad guursanin
yaa taana waxaa la yidhaahdaa maxay rabiba. halkaas waa 4 aayada iyo gabadhii inankaagu qabay sodohda iyo tii gabadhaadu ay wadatay 4 gabadhaada edadeed walaasheed habaryarteed gabadhaada edadeed walaasheed iyo habaryarteed waa imisa dee waa 7 4 hore iyo 3 dambe 7daasina xagga xiditinimada ayay ku xaraamiyiin guurkooda. haddaan ku celino waa waxa weeye tii aada sodoga u ahayd adigu ee inankaagu qabay iyo tii aayada ku ahayd iyo sodohdaa iyo inantii gabadhaada wadatay gabadhaada walaasheed edadeed habaryarteed yaa macnaha xaaskaaga baan ujeeda cafwan gabadhan baa iyaduna 2 waji leh. gabadha marka la idhaahdo ayaa dadka qaarkood xaaska u yaqaan qaarna inanta marka ooridaada dheh ooridunaan idhaahno oorida malaa si waafaqsan yihin ooridaada tii ay dhashay iyo tii iyada dhashay. waaya halkaa waa 7 3 meelood min 7 baynu sheegnay. kuwa siyaabaha kala duwan 9 siyaabaha kala duwan guurkoodu xaraamta yahay waxa weeye iyagu tii 3 aad u dhamaysa dalqadaha tii aad u dhamaysay waxba aanad u reebin. ilaahay baa wuxuu yiri falaa taxillu lahu xataa tankixa zawjan ghayra. ninkan furee dalqadaha u dhameeyay xalaal uma aha ilaa ay nin dambe soo marayso oo uu la soo aqal galayo oo uu soo furayo oo ka cadad baxaysa weeye macnaha. talabaad waa al-mulaacana tilacaanku ninkan uu dhex maray suuratu an-nuur qaybteeda hore ayaa ka waramaysa. mar haddii la isla nacdaltamo oo licaankaasi uu dhex mara hadalma joogo adduunyada daaya fuqahada qaar baa tilmaamay inay ka soo heleen ilaa aakhira inaanay soo wada xidhiidhayn. waaya waxa saddexaad almuxsanaatu min annisaa sida juskuba uu ka bilaabmayo jusaska u horeeya ka mid ee suuratu nisaa ku jira. almuxsanaatu min annisaa waa gabadha nin kale u mehersan. mar haddii gabadh meher lagu xidho waa albaab xidhmay dee albaabkaa iyadoo la furo mooyaane waa qalad iyo kayru sharci in la jabiyaa oo gabadh mehersan inuu mid kale yidhaahdo waan mehersanayaa ma soconayso. almuxsanaatu min annisaa bay aayaddu leedahay. almuctadda waa tii iyaduna nin kale furay laakiin cadadbaxa ku jirtay ee weli ciddo tirsanaysa. alkaafir markaa taa muctadadaana dee ilaahay aayad buu ku sheego walaa taczimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah. kuntinta nikaaxa ha samaynina macnaa in guur lagala hadlana waa la diiday in la meheriyaana waa xaraam. haddii la meheriyana maba ansaxayaba oo meherkaasi ma guntamayaba kol haddii gabadhaas aanay cadad bixin. alkaafira waa gabadhii kaafiradahayd weliba dee tii mushrikadahayd. kuwa ahlulkitaabka waa laga soo reebao suuratulmaa-ida ilaah ku sheegay yahuudda iyo nasaarada. laakiin gabadha aan islaamka ahayn ee mushrikada aan kitaabna lahayn guurkeedu waa xaraam. walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum. gabadha aan islaamka ahayna mushrikada ha guursanina baa ilaha wuli haba idin yaabgeliso qoladeedii iyo quruxdeedii addoon ilaahay rumaysay baa ka khayr badan. waaya taana guurkuba ma qabanayaba ee ha la yska ilaaliyo. al-ama addoontii weeye addoontii. marka addoontu waxa ay ka xaraam tahay qofka gabadh xora qaba ama gabadh xor ah guursan karaya ayay ka xaraamtay. shuruudaha ku xidhan sinana ka baqday macnaa gabadh xora ma qabo gabadh xorana ma guursan karayo sinana wuu ka baqayaa. waa kaa ilaahay uhi daalika liman khashiya alcanata minkum. arrintaas waxay xalaal u tahay inuu addoonta guursado waa qofka sino ka baqda un. laakiin midh baa jiro oo inaad kala fahamto mudan. addoonta qofku wuu yeelan karaayoo lahaanshaha wuu kula dhaqmi karaa qof waliba waa marka ay addooni jirto.
dabcan dee marka jihaadku ogan yahay gaalada islaamka wixii laga soo qabto gaalada ayaa la yidhaha addoomo laakiin tan carabaha iyo meelaha kale xabad madowna iska soo qabsanayaan oo addoon odhanayaan taasi arrin ma aha arrin islaam oo addoon lagu sheegi karo ma aha ee addoonku waa addoonka nidaamka shareecadda waafaqsan weeye marka addoonta qofku milkul yamiin wuu kula dhaqmi karaa iyo lahaansho laakiin meher kolkay noqoto ee uu doonayo addoon nin kale uu leeyahay inuu guursado islaamku wuxuu u fasaxay kolkaanu helaynin gabadh xora sababta loogu diidayna waxa weeye dee caruurtiisiiba addooma noqonaysa caruurta iyada u dhasho ninkaa iyada iskale addoonta ayaa ay usii noqonayaan addoomay u noqonayaan taana waa la diiday qofka markaa shuruudihii aan laga helin baa loo diiday azaniya gabadha hadday sinada caan ku tahay iyadana sharcigeenu wuu diiday tii sinada caanka ku ahayd qof ninkii cafiifka ahaa ee dhowrsoonaa waa loo diiday azaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik ta zaaniyadda ah waxaa guursan kara un mid isaguna nooceeda ah aayadda qeybta dambe ilahay wuxuu ku yidhi waxurima dalika cala almu'miniin guurka noocaasa taa aan dhowrsanayn guurkeeda ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey ragga mu'miniinta ah waxurima dalika cala almu'miniin mu'miniinta waa ka xaraam ereygu waabu cad yahayba xaaraan baa ilaahay uu ku sheegay dee xaaraan waa waxaan banaanayn waxaa ka mid ah sagaalkaa guurkoodu xaraamta yahay almuxrima xaajiyadda dumarka xoolaha iska haystay halkan joogaa markay xajka tagaan mid meeleeya hadday helaan iyay ku degdegin baahi rag way iska jiri kartaaye jaaniskii waxaabu ka soo baxayba xajka dhexdiisa ayay odhanine xaajiyadda ha laga xishoodo ooyaan intaa ay xajka ku jirto arrin guur lagala hadlin haddii la isku dayana ma mehersamayo laa yankixu lmuxrim walaa yunkax qofkii muxrimka ahaa ma guursanayo loomana guurinayo asuu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaa saa daraaddeed ba isagu inuu guursado looma ogola inuu cid sii wakiishana looma ogola inuu inantiisa guuriyana looma ogola in isaga la wakiishana lama ogola macneed arrin la xidhiidha guurka iyo wixiisaba waa ka xidhan yahay saacadahan baa qaybsan iyo wakti ilaahay u carbuunan baa jira wakti insaanku arrimihiisa uu wataa jira wakti ummadaadu xu qaban kartaa jira waktiyada in la isdhexgeliyo la isku gado maya marka saacaddani saacad ilaahay u xidhan weeyo ka dhigan saacadda aad tukanayso oo kale saacadda aad tukanayso dee howlahaagii kale waad soo laabatay marka saacaddan xajka aad ku jirto wixii lagaa xaaraantinimeeyey waa inaad joojisaa oo waxaa jira waxa la yidhaahdo muxaramaat alixraam aw maxduuraat alixraam qofku marka uu had iyo jeer xajka xidhan yahay waxyaabo ka xaraama waxaa ka mid ahaa maxay inuu cid guursado taasina in la xusuusnaado weeye way dhici kartaabe dadka qaarkood baa eeshiyaanka iyaba isaga yaro badan yihiine barakaysiga ayaa aada ugu yaro badan hadda marka ay had iyo jeer tagaan maka iyo madiine iyo meelaha dee goobaha muqadasaadka iyo xarameynka ayaa waxay idhahdaan si awlaad barakaysan aynu helo aan isguursanno ama way kuba soo ballamaana waxay halkaa aan isku guursanno qaarkoodna waabay kaga dhacdaaba iyaga oo camalkii xidhan inay galmo sameeyaan iyo jimaac oo ay yidhaahdaan walad barakaysani haynoo calool galo dabeedna xajkii iyo halkaa kaga burburaba khatar cadiim waaya ta sagaalaad waxa weeye alkhaamisa waa gabadhii shanaad islaamkeennu waxa uu baneeyey in 4 dumarahun ninku uu guursan karo nebi maxamed unbay gaar ku ahayd calayhi salaatu wasalaam inuu guursan karayo wax ka badan 4 dumar ah taasina waxay ahayd arrin isaga u gaara rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxau nebi maxamed lahaa wax la yidhaahdo khusuusiyaat rasuul oo qaarna rusushii hore uu kala gaar ahaa khusuusiyaad waa waxyaaba nebiga u gaar ah waxyaabahaasoo qaarkood rusushii hore uu kala gaar ahaa qaarna wuxuu kala gaar ahaa ummaddiisa marka waxyaabaha lagaga dayanaya nebiga waa wixii aan daliil sheegin inuu isaga ku khaas yahay
wixii laakiin isaga daliilku uu tilmaamay inuu ku gooni yahay lagagama dayan karayo nebiga calayhi salaatu wasalaam. waaye waa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin. aayadda ilaahay arrimaha qoyska ee nebiga u gaara markuu sheegay ayuu yihi adigay kuu gooni tahaye mu'miniintu kulama wadaagaan. waa sidaas weeye oo waxaa sii caddaynaya nin khaylaan la yidhaahdaa soo islaamay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. 10 buu wataaba wuu ku warwadhay geedka dumar la yidhaahdo dhan walba wuu iska dhigay 10 buu wataa. markaasuu yihi ikhtar minhunna 4 war 4 ka doora buuri. islaamkeennu 4 buu ogol yahay bal inta kale iska sii daayo 4 ka dooro. dee 4 buu ka doortay. sidaasay tahayoo wax dheeraadka ah 4 suufina looma banaynin, mid weli sheeganayana looma banaynin, mid kalena hadalkeeda badaa. waabay dhacdaa qaarkood oo dadka iska yara si uun u silanoo yidhaahdo annagu si baanu isaga barakaysanno khayrkaa nagu badanoo way iska badsan karnaa. taasina waa arrin qalada weeye. waxaa kaloo qalada aragtida shiicada ee odhanaysa iyada oo laga badinayo dumarkii 4. waxaa la daliishan karaa aayaddaa ilaahay uhi mathna wa thulaatha wa rubaac. aayaddaasay si khalada u fasiraano waxay idhaahdeen mathna 2 waa 2 iyo 2 4 wa thulaatha 3 iyo 3 waa maxay wa rubaaca 4 iyo 4. marka 18 baaba la guursan karaabay qaarkood gaadhsiiyeen. qaarna waawul cadafkanay macnihiisii meesha ka saareenoo mathna wa thulaatha wa rubaac tiradii bay isu geeyeen. 2 loo geeyey 3 oo 4 loo geeyey yaa 9. qolana 9 qolana 18. macnaha halka ay ka leexanaysaa waxa weeye daliilkiioo si khalada loo fasiray oo luqada carbeed sidii uu daliilkani macruufka ku ahaa oo laga bedelay weeyoo la leexiyey. ilaa waxaa jira tafsiir iyo ta'wiil. ta'wiilkaasaa ta'wiil sawaaba iyo ta'wiil munxarifaa jira. ta'wiilu linxiraaf tafsiirkii oo laga been sheegayo si khalada loo fasiro luqada carabigu keenay. iminka haddaan idhaahdo shaaha halkan yaalla 2 u qaata, macnaheedu waa intiina halkan joogtaa 2 u qaata. maxaa loo fahmayaa? nin waliba inuu 2 qaato soo maaha, saasaa loo fahmaya. shilimada halkan yaalla 3 u qaata. waa anigoo idhi uun midowba 3 qaado. laakiin ma aha in macnaheedu uu yahay hala isku daro. marka taasina waa aragtida shiicada qaladka ah. waaya marka waxaynu soo tilmaannay halkaa oo 21 lagu darayaa 9. haddii aynu isku daba xidhiidhino hadalkaynu ku dheeraynee waa gabadhii 3 dalqadaha loo dhameeyey, tii ninkeeda uu licaanku dhex maray, tii nin kale qabay, tii nin kale ka ciddo tirsanaysay, tii aan islaamkaba ahayna mushrikada ahayd, addoontii dadka qaarkood, tii sinada caanka ku ahayd, tii xajka xidhnayd iyo tii 5 number 5. number 5kaasi ma jiro. soomaalideennu waxay idhaahdaan haddii ninku uu 4 hore sii qabay oo uu guursado mid 5aad tii u horreysaa daaqadda ka sii baxaysa bay idhaah. waa nooc shahwaaniyada. tii u horreysay islaantii miweynada ahayd ee ugu horreysay waa rabitaankii bay ku salaysantay. iclaamkaa way baahiyeenoo aad weli kamau bixin dadka aad buu ugu jiraa. nin baa sheekh guursaday tu 5aade teebaa furmaysa. dee tii u horreysay baa iska sii tegaysa baa la yidhaha bustaheeda sii qaadanaysa. maya tan u dambeysaan mehersamayn. tan u dambeysay ayaan mehersamayn. waaya marka halkaa 9 baynu sheegnay. halkii horena 30. 2 qaybood baa loo qaybinayaa. 2 qaybood ayay u qaybsamayaan 30kaa guurkoodu xaraamta yahay dumarka. qayb xurmadooda waxaa la yidhaahdaa xurmatun mu'abada, qaybna waxaa la yidhaha xurmatun mu'aqata. qayb xaaraantinimadoodu waa weligeedba, qaybna xaaraantinimadoodu waa mu'aqat oo way muddaysan tahay. sifo iyo wakti shay baa ku taagan, sabab baa manciday wakhtiyaysan. marka sababtaasi markay meesha ka baxdo guurkoodu xalaal buu noqon karaa. waaya
marka aynu eegno inta guurkoodu uu xaaraamta yahay weligiiba waa 19. inta guurkoodu xaaraantinimadiisu ay waqti leedahay ee muaqatay tahayna waa 11. soddonkii way is yihiin baa filaya. haddii aynu soo dhaweyno 14kii xagga nasabka ku xaraamta ahaa iyo 14kii xagga nuugmada ku xaraamta ahaa, waxaan leeyahay cafwan 7 toddobadii nasabka iyo 7dii nuugmada, 14kaas xaaraantinimadoodu waa weligeedba. xaaraantinimadoodu waa weligoodba. waxa soo raacaya 4 ka mid ah 7dan xididtinimada ku xaraamta ah. 4taasina waxa weeye aayada gabadha inankaaga iyo sodohda iyo ta aynan xaaskaaga wadatay. 4taasina xaaraantinimadoodu waa weligoodba. ya 4 iyo 14 18 sagaalkan siyaabaha kala duwan ku xaraamta ahaa iyaga mid qura ayuunbaa xaaraantinimadeedu ay weligeedba tahayoo waa saaxibata licaan, tii ninka iyo iyada uu licaanku dhex maray. licaanku uu dhex maray sida suuratu nuur ilaahay uu kaga warramayo. 8 kale maya, taasunbaa iyaduna ku darmaysa liiskaa xaaraantinimadu weligiiba ay tahay. marka 14kaasi dhan bay isu mareen. 7dana 4 baa xaaraantinimadoodu ay noqotay weligeedba. 9kana mid unbaa xaaraantinimadiisu ay tahay maxay joogto. waaye 7dan xagga xididka ku xaraamta ah 3 baa iyaga waqti un ku xidhan. maalan gabadha walaasheed iyo edadeed iyo habaryarteed, ilaahay baa wuxuu leeyahay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf. wa an tajmacuu bayna alukhtayni, laba walaalaa inaa kulmisaan guurkooda idinka xaraama. xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa dee edadii iyo dee habaryartii. waaye marka haddii ninku uu gabadhan furo, ooridan furo ama xaaskan furo, wuu guursan karaa waqtiga cadad baxdo edadeed, habaryarteed iyo walaasheed baa guursan karaya. kuwan kale 9kan siyaabaha kala duwan ku xaraamta ahaa 8 ka mida baa xaaraantinimadoodu waqti ay ku xadaysantay oo midho baa ka baxay. haddaynu dib u eegno maalan tii dalqadaha loo dhameeyey qur-aanku muxuu ku xadiday? falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayrah, xataa jeeray nin kala guursato. markay nin kala guursato ee yaduuqa cusaylataha ee uu la aqalgale ee ay ka cadad baxda intuu furo, dee waqti intaasunbay ku xidhanta. taasoo laakiin si miir qaba u dhacday oynu uga jeedno aan maxlal ahayn. dee maxlalkii yaraa liitee soomaalida dalqadii baa ka dhammaaday, markaas dabeeta odhanaya mid reer hebela waar bal iga saacido habeen ayuu sidii orgaca usoo ammaanaysanaya. bal yaro wax meher la yidhaahdo ku yaro wado habeenun dee ii yaro arag. wadaadada qaarna saawaabay ku taliyaanba oo waa guuldara wey. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waabu nacdalay, lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu. ka wax maxlalaya iyo ka loo maxlalaya labadaba ilaahay ha nacdalo. atays almustacaar buu ku sheegay, orgac lasoo ammaanaystay. haddaad aragtay idaha in sumal loo soo irgisaystoo lagu daro, ninkan weynina waa sumalun, orgac kala weyn. taasoo si daacadnimo u dhacday wey. si daacadnimo haddii galma aanay jirin xataa uu meheriyo maya. macnaa qofkan sababta waxa wey shareecaddu waxa ay siisay jaanis bay siisay. markii loo meheriyey hal kelmad baa loogu meheriyey oo alijaab walqabuul, waan kuu guriye waan guursaday, kelmadaas ahayd. ilaahay xikmadiisa isagoo ilaahay fursad siinaya ummadda, kelmadiibuu 3 faraar u yeelay oo 3 dalqadood la yidhaahdo. haddii midani dhacdo bal haystaba qabateeyo, midda labaad hadday dhacdo bal middaa ha ku loodiyo si aanu u banjarin. kiina kolkuu banjariyo daawihiisa ha iskaga fadhiyo ilaa intuu wax kale ku kicinayo. waaye kaasi markaa waqtigaasi ku xadaysan yahay. almuxsana iyo almuctada, gabadha nin kale u mehersan iyo gabadha nin kale ka cidda tirsanaysa, dee waad iska dareemi karaysa. hadduu ninkan kale qabaa furo oo ay ka cadad baxdo, warku waa dhan yahay. intaasunbay ku xadaysantay. alkaafira, tii gaalada mushrikada ahayd, dee waxa uu ku xadaysan yahay waqtigeedu inay islaamto. walislaamu yajubu maa qablah, siduu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. islaamku wixii ka horreeyay wuu dumiyaa.
alama addoon baa la yidhi addoontu dee waa ina xorowda un hadday xorowda arrinkeedu waa dhan yahay azaniya tii sinaysta haddii ay dee toobad keento oo qof hagaagay uu noqdo oo arrinkiisa uu fiicnaado xalaal buu iska noqon almuxrima tii xajka xidhnayd dee iyaduna waa ina camalkeedii u dhammaysato un maalmo yar kadibba waxeeduba maalmay ku koobnaayeenba inta ay camalkan ku dhex jirto alkhaamisa tii shanaad dee waxay ka xaraam ahayd goorma inta uu afar qabo laakiin afartii hadduu mid furo waxa ay noqonaysaa xalaal marka halkaa 8 iyo 3 hore ya ha 11 wey 11kaas iyo intii hore marka la isku daro 30kii sidaasay ku imanayaan waayahay marka waxaan ugu yar raagaynaa ama aynu aada ugu yar iftiiminaynaa dadka siba isaga yar murugsan tahay dadka qaarkood baa waxay ku weydiinayaan waxyaabo kaba durugsan oo aan maaragtay uga dhaweynba gabadhii adeerka iyo tii abtiga iyo kuwaalahaasay ku weydiinayaan dee miyay ku jirtaa tii adeerka iyo tii abtiga iyo liiskan aynu tirinay miyay ku jirtaa kuma jirto liiska yarun baad qaadanaysaa waad ku eegaysaa waad ku saxaysa warkuba waa dhan yahay marka ooridii uu ka dhintay macnaha gabadha marka ooridii uu ka dhintay adeerka iyo ooridii uu ka dhintay abtigaa ruma hooyadaa walaalayihiin dee halkan kuma jiraan tii in adeerkaa uu dhalay dee in adeerta laftigeedii baaba xalaal ahaydba marka kullu daalik intan wixii ka soo hadhay waxaa loo eegi doonaa un baabka ah waanay dhacdayba dadka qaarkoodoo guursaday dumarkan maxaarimta ah qaarkood way dhacdayba waddankeeniyo si uun iyagoo isu moodsiiyey walaashii gabadh ay dhashay tu ay sii dhashay buu guursaday markaasaanu kala furnay intay noola yimaadeen war bal ka warrama dee durugsanaantii unbuu mooday ina caadid kol haddii qofkan asalkiisii uu yahay aanu guurkiisu ku bannaanayn isna kuma bannaana ilaa eddadii iyo habaryarta mooyaane eddadii iyo habaryarta guurkoodu ma bannaana laakiin hablahoodu dee waa bannaayinoo waa in abtidii iyo habro wadaagti intooda kale asalku kale hadduu xaraam yahay iyaguna xaraam bay noqdaan kolkaynu soo ururino inahaasaynu kaga gudbi lahayn baabkaa isagaa